kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada ugu door corona waxa kamid ah Axmed Madobe oo hubka dhigis ku sameeyay ciidamada taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya 7 qodob oo laga soo saaray shirka xulufada Puntland Hirshabelle Koonfur Galbeed Ra'iisul Wasaare Khayr oo kormeeray taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir madaxweyne Farmajo iyo Besha Calamka oo kulan degdeg ah yeeshay kadib markuu ka yimid magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland ciidamada ammaanka oo xalay 2 wiil kala baxay maqaayad ku taal isgoyska Boondheer ee magaalada Muqdisho qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa la sheegay in Kismaayo uu ka bilaabay kulamo uu la qaadanayo saraakiisha ammaanka ee maamulka Jubbaland gaar ahaan xubnaha aadka ugu dhow ee maamulkiisa saraakiil ka tirsan militariga magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegeen in saacadii la soo dhaafay uu yeeray dhowr sargaal iyo la taliyaal uu leeyahay oo dhanka ammaanka waxayna ka wada hadleen xaaladda magaalada Kismaayo iyo doorashada 2019 ka dhacaysa halkaasi Axmed Madobe ayaa saraakiishu la kulmay u sheegay in Kismaayo uu ka bilaaban doono hubka dhigis looga qaadayo dhammaan ciidamada hubeysan ee taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada kale ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee ku dhow musharaxiinta qaar arrintan ayaa u muuqato beegsi loo geysanayo dhammaan saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ciidan ee loo arko in ay ka hor imaan karaan Axmed Madobe kuwaas oo loo fiirin doonin oo kaliya in dawladda ay ka tirsan yihiin balse sidoo kale laga dhaxraadin doono ciidamada iyo saraakiisha Jubbaland howlgaladan waxa lagu wadaa inay qayb ka qaataan ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo kuwaas oo la aaminsan yahay inay daacad u yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam maadaama dhaqaale badan ay ka qaadaan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo qorshahan Axmed Madobe ayaa qayb ka dadaalo uu ku xaqiijinayo in dawladda Soomaaliya ay wad ku yeelan in ay fargeliso doorashada ka dhacayso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa aad looga cabsi qabaa in Kismaayo mar kale ay martigeliso dagaalo u dhaxeeya ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa Kenya oo isku garab ah iyo saraakiil aan taabacsaneyn Axmed Madobe hogaaminayo ciidamo fara badan oo gudaha Kismaayo u soo galay maamulada Puntland Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa shir 3 geesood ah oo ay ku sameeysanayeen isbahaysi ka furmay magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland shirkan oo uu furay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafdagareen madaxweynaha Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash iyo wasiirada 3 garab oo ka qayb galay shirka furmay ilaa iyo hadda ma cadda sababta 3 maamul ay u yeesheen shir gaar ah oo ay ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Galmudug inkastoo oo Puntland beesi gaar ah leedahay maamuladaasi si kastaba shirkan oo looga hadlay iskaashiga dhinacyada federaaliinta dalka amniga horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga sidoo kale waxa looga hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa tayeynta hay'adaha dawladda Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr oo xalay kormeer amni ku tagay taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo isgoosida ay ku sugan yihiin ciidamada sugaya amniga caasimadda xarunta hagista iyo jawaabaha nambarka 991 ee booliiska dhawaan howlgeliyeen si ay shacabka ugu soo gudbiyaan xogaha ay helaan howlwadeenada booliiska oo xil saaran shaqada isku xirka booliiska iyo shacabka ayaa ra'iisul wasaaraha siiyay warbixin la xiriirta hanaanka ay u shaqeeyaan iyo wixii u qabsoomay booliiska wixii ka dambeeyay markii dhawaan la howlgeliyay nambarka 991 ra'iisul wasaare Khayr ayaa u sheegay saraakiisha booliiska in ay wada shaqeeyaan booliiska iyo bulshada inteeda kale oo muhiim u ah sugidda amniga dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo ayaa shalay galab oo axad ahayd kulan degdeg ah la qaatay qaar ka mid ah wakiilada caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho kulankan oo ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin ayaa wax uu dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo iyo safiirada Mareykanka Ingiriiska iyo kusimaha wakiilka qaramada Madobe ee arrimaha Soomaaliya kulankan oo dhacay markii uu ka soo laabtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa uu ka dhacay qaybta filada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Farmajo ayaa xubnaha uu la kulmay warbixin ka siiyay kulankii natiijo la'aanta ku soo dhamaaday ee magaalada Garowe
waxyaabaha sababay shirka in lagu kala tago ayuu madaxweyne Farmajo faahfaahiyay waxayna warar hoose sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada lagu eedeeyay in aysan ka fikirin danta Soomaaliya ay ku kala tageen qorshaha doorashada Soomaaliya ee sanadka soo socda ee 2021 iyo tan 2019 ee maamul goboleedyada iyo Puntland Besha Calamka ayaa aaminsan in dhinacyada ku shiray Garowe ay dhamaantood isku qabteen arrimo ku saabsan dana gaar ah halkii laga rabay in ay ka fikiraan danta guud ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay 2 wiil oo dhalinyaro ah kala baxay maqaayad ku taala degmada Boondheer ee gobolka Banaadir wiilashan ayaa ka tirsanaa shaqaalaha maqaayadda waxaana la sheegay in ciidamada markii ay soo galeen ay si toos ah u abaareen labada wiil kadibna ay ka kaxaysteen goobtaasi dadkii maqaayadda ku sugnaa iyo shaqaalaha kale ee maqaayadda ayay ku wargeliyeen in aysan jirin wax dhib ah oo ay shaqadooda sii wataan raggaana la soo baari doono maqaayadda wiilashan laga kaxaystay ayaa habeen hore banaankeeda waxaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa wasaaradda amniga Soomaaliya waana markii saddexaad oo maqaayadan gudaheeda iyo banaankeedaba lagu dilayo shaqaale iyo ciidan ka tirsan dawladda Soomaaliya ma jirto ilaa iyo hadda wax war ka soo baxay hay'adaha ammaanka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo arintan ku saabsan ammaanka magaalada Muqdisho ayaa ahaa maalmihii la soo dhaafay mid aad u wanaagsan isla markaana ciidamada ammaanka ay baarayeen gaadiidka iyo dadka shacabka oo maraya wadooyinka waaweyn ee caasimadda ciidamo fara badan ayaa lagu soo daadiyay wadooyinka magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bateen qaraxyada iyo dilka ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow tan iyo howlgaladii uu ku dhawaaqay ayay ciidamada baaritaano xoogan waxay ka sameynayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyadoona ammaanka magaalada Muqdisho uu noqday mid aad u soo hagaagay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo